Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena. Maanta waxaan idiin wadaa waa walaashin Anise Style casho dhameystiran, bariis iyo steegiisa isla socdo, hilibka caadiga ama hilib shiishiid ayaan ka sameynay steeg sidaan uga sameeyay isla socono. Waxaan soo qaatay 2 koob oo bariis ah. bariiska caadiga ah nin walba uu isticmaalo. bariis caadi aan karinaa marka hore. Waxaan kali ku darayaa 4 xabo heel qorfar iyo cusbo yar iyo filfil. Okay, intaan kali iyo saliid yar. Intaa kaliya ayaan ku karinayaa bariiska. bariis iska cad caadi ah laakiin iidaan wanaagsan leh. Dugsigaas ayaan ku karinayaa bariiska. Saa iska karaayo waa hilibka suqaarta caadiga loogu talagalay. Waan soo karini insha Allah. 1 xabo basal ah. xabad weyn waaye, 1 jeexa isticmaalaya insha Allah. Si yar yar waxaan diyaarinayaa hadda steegeeni. steega sida tuqada steega looga sameeyo faa'iideysi wacan. tuqadana aniga la sameysanayo hilibka caadiga suqaartan tuqadana ka sameynaya. waayo tuqada caadi ma iyaalin. hadii ku yaalin waa ina aad ka sameysan kartid marka hilibka caadiga ah. marba haduu hilibkaad haysatid steeg yahay oo yahay laf lahayn waad ka sameyn kartaa insha Allah. ka faa'iideysi wacan. basasha waa inaad si yar yar usoo jarjartid. sidoo kale cashadeena waxaa kamid ah kabash. isagana waa hagaajin doonaa insha Allah. waa hilibkii uu ka soo baxay. waan boobsiinaya waayo waqti ma hayo. marka isla socono laakiin wax walba idin tusaaya insha Allah. inta ugu muhiimsan hilibkii wax yar ayaan soo kariyay. isla mashiinta basasha aan ku jarjaray ayaan hadda isagana ku shiidaa insha Allah. hada tan caadiga blenderka waad ku shiidi kartaa laakiin blenderka basasha kuma shiidi kartid. okay, hilibku sida ayuu ku soo baxay. 2 qayb ahaan oo kala shiidaa. qaybtii labaad toon iyo kabsar aan ku shiidaa insha Allah. kabsar iyo toon aan ku daray. waa soo ridqaa isagana. waa ka hilibkeeni sida ay yaryar ka fiican ayuu ku soo baxay maasha Allah. basashi ayaan ku dareena hadda. waa sida steeg u hagaajista aniga markaan rabo. basasha si yaan u shiidan tahay u jarjaran tahay. maraq digaag spicy-ga u isticmaalaa insha Allah. maraq digaaga isticmaalaya cusbo ma lahan. paprika qaado paprika qaado basbaas guduud iyadana. filfil aniga filfisha aad aan u isticmaalaa. filfisha waayo cuntada wax kaga fiican ama kaga macaan ma laha. soo fiiri soo tijaabi. qaado afkeeda hore huruud ah. subaga ku daraa insha Allah. laakiin halkan subaga aniga ka isticmaalaya. adiga saliid waa isticmaali kartaa. 2 qaado si fiican u buuxdo subaga isticmaalaya. subag lo. hadda wixii ka dambeeya gacanta ku rifaaqeena insha Allah. waxaa kaloo ku darayaa
steak sauce alada steak sauce steak-ga loogu talagalay. Soya sauce no isticmaali kartaa, waxba different yara u dhaxeeyo. maqli ayaan soo qaatay, maqliga ayaan ku hagaajinaa insha Allah. biyo ayaan soo qaatay oo gacanta gashanayo insha Allah, isla socono. waadna beesa ilaa uu sidaa kuu noqdo. sida dheerarkan u jaray, haddaad rabtid balaca u jaran kartaa insha Allah. adiga intaadan dabka saarin sidaas ayaa u jaraysaa, si oo ah maxaa la dhahaa, si tartiib ah u jaray, miswaaleysid. taas le qaadada afkeedu galgeline, hadhow markuu karna tartiib le gadgadine. wali ma gadinin, dhinaca kalena waa gadinaya insha Allah. sida quruxda badan oo hadda kusoo baxay anigoo gadinin waan gadinaya insha Allah. haddana waa idin tusaa inta aan ka gaaro, waayo waan boobsiinaya insha Allah. isla socono, waxyaabo badan oo isku korsameynaya. hadda waxaan ka gaari waayayna haliga raali noqdo. basbaas haddana intana ka hagaajinaya, marka waan soo shiida insha Allah. basbaaska iyo yaanyada iyo basasha inta baan soo jarjaraa. waa soo jarjaray basbaaski, waan soo tumay iyo toonti. hal mar digsi la isku gadinaa, intan lama kala reebayo, waxba lama kala shiilaayo. 5 daqiiqo qada dhammaystiran kasoo tuuraa la ma fahanteen. cusbo yaraan ku daraya macalaa biyihiisi digsiga dabka la saara insha Allah. macalaa biyihiisi oo kawaan siiyey bakeeri haafkiis wax dhan. steegi waan gadiyay asagana sidoo kale, maasha Allah si qurux badan oo kasoo baxay. diyaar waay hadda, waa la dagaa. waxaa kaloo sameynaya karaali noqdo please, videogu dheeraana laakiin iska faa'iide, waad ka faa'iidi doontaan. salarkayga maanta waxaan ka dhiganayaa kabash iyo karoot. dabkan wax yar tusaa, 1 iyo 2 aan dabka ku tusaa insha Allah. waxaan soo saartay digsi dabka, saliid yar ayaan ku soo shubay. wax yar rabo inaan ku shiilo leh 1 iyo 2 salar kabashkii karootka. kabashkii karootka waxaan ku daraa cusbo yar iyo liin. haddaad rabtid qal waa ku dar kartaa. salaraan ka rabaa, wax yaran dabka tusaaya, wax yaran dabku shiila insha Allah. jabka liinta ah aniga waqti mahayna, haddii kale waxaad sameyn kartaa kabashka biyaa la dhigi kartaa. biyaha markuu cabaar la yaalo jileecu noqonaa sida salarka camal, sidaasna salar waad oga dhigan kartaa insha Allah. ayadana ka faa'iideysta. maasha Allah qadada cashadeen sidan ayay kusoo baxday. wakaa isteegeeni bariiskii
bariisku markuu soo baxay idin tusin wakaasa salarkeeni cabitaan avocado nin cid walba way shiidataa avocado iyo moos isku soo shiiday mooskeeni ka bogasho wacan asxaabta qaaliga please hadaad nagu cusub tahay ha iloowin subscribe hadda hore